السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلامي دمانتينا ميل والبعض وذا جوكتان ما أنتو حيث صوبان ديقا خيب سديدات ورا اللقيا وإنا أدوليقا مخلين إلى الدعوة. ويل مرايكان كل شيء وحوسة ما يستي ويب-سايت لا يرهدو pay for pray. ويب-سايت كمركا قشيت وحي أضربتي إنا لغو دعيو أيا خوري كدب لعقت أيا بحيني انتر مركا دهديت waxaa ku soo baxayo waa ku duceynina mise waa ku dukaheena 3 bil gudaheed wuxuu helay $7 milyan. gabar u dhalatay dalka Ingiriiska waxay internetka ku baratay wiil oo u dhashtay dalka Masar. muddo ay internetka ku xiriir jireen kadib waxay aadi Masar way isguursadeen way soo laabatay way u dacwootay. dacwadii waxay ku baxday £10,000. ugu dambeyntii wiilkii waa loo keenay muddo yar ayuu la joogay 14 February runta ayuu u sheegay wuxuu dhahay ani kuma jecli dan ayaan ka lahaa dantana waxay ahayd ina Ingiriiska aan imaado marka saas ay ku kala tageen. Brian Bernie waa nin lacag leh oo ku nool dalka Ingiriiska xaaskiisa ayaa waxa ku dhacay cancer lacagtiisa dhan xaaskiisa ayuu ku daaweeyay ay gaarayso lacagta £16 milyan. markay caafimaad qaaday oo isbitaalka ay ku soo baxday waxay u timaaday guriga waxay aragtay guri oo yar ah oo guri oo ijaar leh ah markaas wuxuu dhahay lacagtii aan haystay dhan adiga aan kugu daaweeyay gurigan ayaan ijaar leh way aniga xataa ma laha. waxay ugu jawaabtay guri saan oo kale ah ma ku noolaa kari ani marka ay fur saas ay ku kala tageen. gabar oo u dhalatay dalka Shiinaha inta wiil ay taqaano oo la xiriirto internetka waxay ka dalbatay iPhone 7 dhamaantood waxay u soo direen iPhone 7 iPhone 7 ay u soo direen. qof walbana wuxuu isleeyahay aniga kali ay ila xiriirtaa ama aniga ayaa saaxiibkeeda ah. iPhone-ada ay aruurisay dhamaantood way gaday tuulada ay ku dhalatay ay ku laabatay meesha guriga u gadatay. wiilkan gabar ayuu internetka ku bartay muddo ay xiriiri jireen kadib way isjeclaadeen markay go'aansadeen in ay is arkaan gabadha waxay ku dhahday haddaad daacad ii jeceshahay lugtaada igu imaaw gaari ha soo qaadanin diyaaradna ha soo raacin. wuxuu ku dhahay okay waan sameynaa intaas oo dhan 45 maalin ayuu soconayay ilaa ay magaalada ay degan tahay inuu ku gaaro. markuu meesha gaaray telefoonkeedu wacay wuxuu dhahay waan imaaday waxaanu ku imaaday lug. gabadhii waxay ugu jawaabtay qof waalan ayaa tahay khadkana way ku xirtay. nin ayaa wuxuu la kulmay Picasso waa artist oo caan ah way iswareysteen wuxuu dhahay yaa tahay wuxuuna ugu jawaabay Picasso aan ahay artista. ninkii wuxuu ugu jawaabay maxaa ii cadeena in aad tahay Picasso. marka Picasso wuxuu caan ku ahaa inuu u leeyahay khooleydiisa ayuu u sawiray wuxuu ku dhahay sawirkan ayaa ku cadeena in aan ahay Picasso. ninkii sawirkii uu qaatay wuu fiiriyay wuxuu dhahay waxaan cadeen maaha oo iska tuuray. nin kale ayaa soo orday sawirkii uu qaatay muddo kadib markii oo Picasso dhintay sawirkii wuxuu ku gaday $50 milyan. dalka Hindiya wuxuu soo saaray sharci cusub wuxuuna dhahay lacagta 500 oo waraaqda ah waa la joojiyay qofkii lacagtaas haysto ha keeno bangiga ha aado waa loo bedelaa. laakiin gabar oo waxba ogeenin oo lacag intaas sano ay dhorinaysay oo lacagteeda dhan oo 500 ah ayaa arintii maqashay ma ogeenin waxay is dhahday lacagtan bis way waxba ma tarayso. gabadhii way waalatay way isdishay. gabadhan waa maclimad oo ku shaqeyso iskool qoftaan xukunto. gabadha waxay sameysay kilideed ay u bixisay qofta ay u shaqeyso qoftii khaliina lagu sameeyay kilidii la sii way fiicnaatay iskoolkeed iyo shaqadeed ay ku soo laabatay. laakiin gabadha waxay ku qaadatay muddo in ay caafimaad qaado. marka qoftii oo iskoolka xukumaysay waxay dhahday dambe iskoolka ha ku soo laabanin xanuunkaaday uu batay iska baxa Allah waa la buriyay iskoolka waa laga buriyay khair sameey shar ayaa ku imaanaya. shirkad dalka Ukraine ku taalo waxay soo bandhigtay ogeysiiskaasna wuxuu ahaa magacaada iPhone 7 oo bedel iPhone 7 ayaad helay. macnaha waa ina baasaboorkaada la imaatid oo ku qoran magaca iPhone 7 inuu yahay. wiilkana imaaday magaciis iPhone 7 way u bedelay baasaboorkiisu la imaaday cadeen uu tusay iPhone 7 wale waka. labadan qof waxay rabeen inay dhacaan maqaayo ku taalo Chicago. maqaayadii markay galeen ninka maqaayadu ku shaqeeyo wuxuu dhahay had waa mashquulsanahay hal saac kadib ii soo laabta. dabaalnimadood way baxeen hal saac kadib way soo laabteen. ninkiina booliis uu diyaariyay markay imaadeen isla markii hore laga qabtay waa la xiray. gabadhan oo Tisaaw la yiraahdo hooyadeed ayaa xanuunsatay waxaana ku dhacay cancer. takhaatiirkii waxay dhaheen waxaa loo baahan yahay lacag ay gaarayso $51,000. gabadhii intaas lacag ma haysanin marka waxay sameysay internetka ay sawirkeed gelisay waxayna ku qortay gabar oo beec ah. macnaha way isgadi rabtay si oo hooyadeed u daaweyso laakiin hay'ad oo dadka caawiso ayaa sheekadii aragtay iyo sawirkii way soo raadisay gabadhii lacagtii waa la sii hooyadeedna waa loo daaweeyay. intaas ayaa soo bandhigay waxaan rajaynaynaa ka faa'iideen share like subscribe ilaawin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.